xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ololihiisa ka bilaabay degmada Mandheera iyadoona halkaasi ay isugu soo baxeen taageerayaal aad u tiro badan oo xisbigaasi taageerayaal u ah kuwaas oo ay halkaasi kagala qayb galeen ololaha doorashada madaxtooyada siyaasiyiin uu hogaaminayo siyaasi Cawl Cali Sugulle sidoo kalena uu ka mid yahay xildhibaan Abwaan Gaaxnuug waxaana halkaasi goobo fagaaro ay kala hadleen dadweynahaasi ugu baaqeen inay fartooda kaga qayb qaataan isbeddelka la doonayo inuu dalka ka dhaco waxaanu soo maray berbera saaka berberaanu soo wareegnay abdaal baanu soo wareegnay imikana waa Mandheera dooxa gubanna waanu tagaynaa waana ciisayseen waa mahadsantiin halkan waa Mandheera maanta gobatiin maanta ina cigaal waa gob wiil Soomaaliyeed saaxil maanta gobatiin halkaas oo ka sii kordhisaan waxay noo ballana maalinta foodka qofka kulmiye ku sii jira ka soo qofku taafad ku jira soo qoda horta dad gobaatiin dad wanaagsan baad tihiin dadaan codkoodu kala baydhin baad tihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan u soo baxdeen sida wanaagsan ay soo abaabusheen xalfadda wanaagsaneed tii berberaba u eeg aad baan idinku mahadnaqayaa labaad ku soo noqdo laakiin sharad baa leeyahay ballan waxaan idinku qaadayaa 10 baa la sheegay 20 reer abdaal in jaamacad dibadda loo diro maxaad tirahdeen waa ballan haddaan ka keeni waayo aasayga haymanina waxaan wakiil ka ahay oo nuga ahay waa degmadan iyo saaxil iyo in alla intay ku abtirsato oo dhan ayaa wakiilkeeda ahay kolka hadiyadda qaaliga ah ee uu cirayna siiyey abaalkeeda inaynu gudno oo aynaan gumoobin ayaan doonayaa anigu halkaa keligee baan mari jiray anigoo xusbiya oon dadkan iila socon oo keligee soconaya ayaan waddadaa mari jiray maanta dee haddaad soo dhowaatay soo barbaara inaad loda u soo eegaanaysaan baa laga yaabaa weli arrimi ma dhowaa waa soo dhowdhowdihiin waxaan leeyahay cadceedda sacab laguma qarin karo maanta wax cad baa muuqda kulmiye waxaa laydhahaa idooro aan ku dile idooro aan ku dilo waa kaa madaxa dhulka inoogu xoqay raggii xuseen iyo saaxiibbaday silsiladaha ragga ku wada xidhay haddaannu isgarab taagannahay maanta sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ololaha ayaa xadhigga ka jaray xafiisyo ka mid ah kuwa degmadaasi uu ku yeelan doono xisbigu maxamed soo fadhiiste Universal TV magaalada Berbera